wiilkaada adoo arkay ha laga garaaco in gabadhaada laga garaaco ku fiicanta because ilaahay idigu sameeyo in laga garaaco ninkaaga oo naag la laafiyoonayo ani intaa wicil dhar lahaa oo samad xumo wicilka naftarkiisaba cadaabaa ku galaysaa wicil aad dhaleysid cadaabaa ku galaysaa because ilaahay qof nin ajnabi oo ilaahay in qorin oo ilaa hadda xarig in ku dhacina guris la gasheen oo ilmaha ka soo bix oolaadin haddaan dishin waa dembi kale ani intaa wicilka qaadan lahaa cadaabtiina galaa ka xidaa naagta hooyadeed adeerkeed ka dulgeysaa aadna ku daahi maayo meelkiisa bishimihiisa safe ay yihiin ninkayga waa horta asaga raganimo dambe hadduu naag ugu tagaa ku dhahay ilaahayga samaystaan ku dharta cirka allaha igu soo dumiyo naag dambaa ku dhahay raganimo ka hawaysan mayso cuntada kalena suna uu darabaana siinaa xabiibi ii cunaa dhaha gacanteeda ku siisiinaa weliba ficiisa u saraysiinaa inuu wicilaa taamidhaa wax madareysiinaay aabey aawa hadoo idhaa la xaala aabaa u dhintay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وايدين سلامي جايز وقبديني وولاشيني وفرتونتيني يوتيوب كاي نغا داونيسان وفرتون اوفيشال عاو waxaa garbeyga fadhi gabdhay quruxda badan la isku tiimka aan ahay soo dhaw farxiyo waa fartuun youtube kay soo dhaw youtube-ka waa ku faraxsanay inaa maanta igu horeysay aag soo booqdo aag soo muuqdo waaye intoo mar yaa dhahday 11,000 ilaa boqolka 200 ilaa adi aag noola waa ku daw taagana insha Allah garabkaaga ah soo dhawaniso adinku ugu horeeya youtube kal fardad lagu fari inaa ku faraxsanahay walaashay fartuun qurux horaha loo wado insha Allah wazayna soo dhaw youtube ka fartuun ba anaa dhalaanay bismillah youtube ka walaashay fartuun horta habeenka u horeys inaa ani ugu firto ku faraxsanaa walaashay maxay kaamiro fartuun 11,000 insha Allah 50,000 waan galaynaa ilaa idinkiisa inda Aisha ma hadli karo aad u faraxsan farxadeeda xitaa mid la soo koobi karo ma ahan fartuun official caaw page-keeda ku casuumanay misna youtube-keeda saa u taqaaniin ma fahmaysaan 11,000 aan weesaan 50,000 naga tuuro saa ayada keeg ugu jiro ani shakhsiyadeeda ma fahmaysaan sida caadiga waa dhowahay waa maasantiin guys waxa waay wadada 20 kuna heena 20 kaas aan ugu tuuro waa marka ugu horeysa hadii aad taas youtube-keega aad soo booqatid hanaga ilaawin subscribe-ka aad u maasantiin caawa horta garbeyga waxa waay inta laba fadhido intana laba fadhido waxa idin wadnaa barnaamij dood wadaaga oo iska yaro kooban ah farxiyo su'aasha ku weydiinaa waxay tahay nin yani adoo suuqa joogtid nina ku soo horbaxay فقط وهريسد أفيرنا استعجاك فيرنا نجا waxaa ka fiirinaa ninkaas koo inuu calool yeelanin labo inuu daba yeelanin bidaarta lagu qaadan karaa wax weyn maaha koofiyo gashanaa laakiin adiga ka daweyn ka geeni mid adiga ka calool weyn habeenka markaas la seexan maagna caloosha ka soo horeyso waxba iskama qaban karnaa leeyahay nin waxaa rabaa festival inuu ahaado nin dhuuban qurux badan yani bishmaa qurux badan suniyaha san dheer badan sida ilmo qurux badan ah u dhalo samada dheer oo bishmaa qurxoon aniso nin qofka ugu hor ninka marka wadada maro saadi nina ku soo horbaxay faqt ugu horeysa xageek fiirina horta qabanayaanba ani horta nin haduuba mar joorin oo leeyahay ismailkiisa bishimihiisa safe ay yihiin ninkayga waa oona dheeryahay wata wazayna an xageek fiirinayd ani marba ninka hadduu jir leeyahay oo dhisan yahay oo wazin boy yahay oo kaal arag u yahay midda kale ani nimanka bishimaha macaan adduunka jecel bishimaha qurxan first one ani bishinta hadee aata anaanaad ku leeyahay anaaba ku leeyahay ilaali kaba midda kale loo hayaa kabaha iga cunaani ninka kabihiisa inuu yahay bismillah kaal arag soo tawaleysan karaa tabal xataa haado haddii nin isla socotiin oo kabihiisa qofka ma ogta labiska inta laga fiiriyo qofka ma ahan shaati wataag darees ma kabaha laga fiiriyo faaftuwan ani kabaha ku fiirinaa iyo bishimaha ani shakhsiyadeeda ninka markuu saa iga soo horbaxo marba hadduu calool leeyahay fartuun gadaasheeda ka galaya hadduu bidaar leeyahay ku sirshe balaas gadaashiisa laakiin ani ahaan shayga qaadasho markii la dhaho horta koo nin hadduusan hareed lahayn naag wax ma dhaamo hadduu jiimar iyo saas ii dadafi karana bishimiisana seefiin anaa le naagna may u qabsan karta xitaa luseyna farxiyo ninkaaga uu ku qabaa kan yaa guriga wada joogtiin wada degan tihiin xaaskiisa xalaashaa tahay
waxaa aragtay adoo suuq iskaga socdid oo adeeg u socotid waxaa aragtay ninkaaga oo naag la laafiyoonayo fariiso ninkaaga oo naag la laafiyoonayo xataa laafiya caadi maa gacanta saas uga haystaa mid kale ku darso uurna waa u leedahay caloosha ku hor socota adi fakta ugu horreysid aad arkaysid maxaa sameyn lahayd adi inaa qabto oo sas u qabto maaragtay aaba kala dil lahaay bani anigu iyo ii fadhiiso qabto waxaas idaa ay dhihin waa qaba lahaaye horta wax alaal waxa gacanta aa ku haayo waa ku dhufa lahaa anigaa sina guri nabad maskuul tag lahayn inta maamindiga geliyo inta maamindiga geliyo meesha wadada dhexdeeda ugu bilaabay asaa ku dilaa ani waji dhan milihi because anaa fiir asaa u silacsanahe asaa uurkan ii yeele macnaha haddoo isdhaa gabadhi yani madoobay raqtee habarhabaray u ekaatee xabadoo kale garaasaa oo dhimahaa le aakhirada si toos aakhira uu diraa anna markas waa la afiyoonaa cunugaagna cunug waa u korinaa intuu dhiig karay u dhicilaa sukari u dhicilaa cunugii kala qoloocan dhal lahaa abis godle u diraa wuxuu ku dhahay xaaji isdaji xaaji ma dhihi kar horta xaaji maxaa kaa khaldan furtuun xaaji ma dhihi kara because xaaji u dhaha afkoo shalay xaaji u dhahayo ana u jeedo oo naag la laafiyoonayaay iyadana waa qaba lahaaye waa garaaci la kow agsii laabicis damba hataa agtiis ma istaagis war aan iska daanin i qab iska daaya furtuun ninaa shukaansanaya naag hadaa ku arko ya naagta sas caawo kalaad fiiriya lama filaana inta uu soo baxay ayagoo isla joogaan haddaa arko يعني مويدينا ولا شباب مدايا غير كما المدايا دام نص صعد كليتي قبنا اذا وقفنا ما حروق وقفنا حقود عم زبادله يعني لعل هدو ناقه دي كو نقط ولا شيء امين اديرت حاسمينه رال نخو نيكا الى شرا يا با ادبو الى شل هذا الله موغدو هيا نسو دو تيري ولا شيء ان اديرتي سخيس عيديسا دhan waa barnaamijho ilaa ninkayga waaye mideeda kale nin anoo uur u leh iga nixibay naxariis dambe u dhimo jiraanbo naxariis dambe iska nixeen ma jirto fahmino xalay waana dilaa diidiisana waa laga fariisanaa waa dillaheed waa dillaha baan cunigana ma ana korsana magacayga u saarnaabo alla gabdhayga maseer badan roseena ma soo dhawo maxaa sameey lahayd horta ani fast one suuqa la jooga Soomahan ani booqi stress suuqa waqtiga isku qabsatin waa laga qabanaya ninka saarabtin uma aarsan kartid suuqa waa la buuxa waa lagu soo diray gurigeeda hadaa imaadan miimaana waxa arkeen inaas ka dhigan xaafadaada cuntada kalena suna uu darabaana siina xabiibi ii cunaadaha gacanteeda ku siina waliba baster waa ima close hada yiro is ilaali inda caashiq inda kayna والله هرت السوق ما وصو حسوستين dad miya joogo meelaha ayaa taagnaa iyo waxaas dhan ma soo galeys naag soo ma arkin ani asaga horto xagga idig tan la socoto ma arkino ilaahay waan ku dhaartee mis waa mara mis waa soo maray horta ayadoo nabad qabto macnaha xitaa soconaysa ma ka tagayani ada ninka ma taabanaysid ninka waa way maana miga tagay ma ogta ninka sug horta adinka marka iga dhex gelina sug gabadha qalada ku tahay inay taabato ninka ma ogo maya sug khalaas ninka naagino qaw ma ogo ayada ma ku gelino maya asiino dhaha laga rabaa fiiri dhageyso ada hadalkana wata iga dhex gelina fi farto ninkino dhaha laga rabaa xaasale aba ma dhihi karo asayada Soomaaliyeed waxa asliya imsaay fartoon mida ku weydiina imsaay iyago naaga qabaan inay og yihiin ku galaan oo anika koowahay waxa sameeysa lagu sameeynahay mooy dhageyse sababta meesha taalahe fahmaysa naagtani even waxa jirto wax adiga kugu kalifay qofkan inaa shukaansato iyo wax adiga kaskaaga kayeelkaaga u gashid fahmaysa inta badan ani kalifaada ku gala yaani qof aan rabin la igama maseeray hadaan arkay Soomaa warabul kacb waa ka dhabeynaya meesha ka gasha qoftaas ka galaya anigana ka soo tagtay hadda waxay taagan tahay ninkeyga ninkan uur baa u leeyahay sax asaa ay qaba sax horta ayada haday ogtii haday ogeen wax iga ma qusayaan ani xagga aydi ayada ka bilaawaya asaana ku asoo afjaray horta asaga raganimo danba haduu naag ugu tagaa ku dhahay ilaahayga ma sameystaan ku dharta cirka Ilaahay ugu soo dumiyo naag danba ku dhahay raganimo ka haweysan mayso ma loo iimaanayba asna ba ka jaraya Ilaahay ku dharta xoolo la'aan ba dhiga mar danba naag ma horta ninka raaga weyn naagtu waxay ku raacdo waa inay macnaha maxal dhigi jiray ay naagtan ninkan ubadka la helaan markii laga soo tago jacayl iyo waxa sax mar damba ku dhahay ma dhaleys waayna ma dhaay wax la'aan waayo looga cararaya waa ku sheegay ninkii ishu kaansan doona wadaan naag kuga arkay wax la'aan ku dhigaya qaliiska xitaa uu qiimo dhaamaya argabdha miseerkooda uu fadhiya
ان روزينا سؤاشت isla tan la socoto waxa dhaaday ani gabadhaas ma taabanay ninkaas arifa gabadha ku sameeyay gabadha maxaa u taabanaani gabadha maxaa iga sameysay ani taagkagay wuxuu saaran yahay ninka ani gabadha wax ma iga sameynin asi soo anoo naxaaskiisa oo guri u joogo uur haddana naayaha markay uur leeyin barashara ku kacaayo dhiiga ku kacaayo way iska bararayaan anoo og xaaladeyda oo asi uur ina u leey u og yahay naagso miyada wakeenin ama naagso dariiqada Soomaali fadhi asaa pastor asaa useless asaa wasaq dhale gabadhana ma gabar islaamid ani ma taabanay gabadha maxaa leedaha adaa cishan weyse walaal waxa haysan weys waa ku heenaya wuxuu adika weeyo ani iga helaya maxaa ani isbahdilkaas igeena asaan ka jaraya meedkiisa baa caadi midkiisa caadi u bixinayna anaga horta qofka bini'aadamka intaas inuu soo xasuusto ka horeys moogta ana aragtida naagta ba xasuusta iga tagaysa waa ina uur leeda ina uur ba sheegtay ilmaha inta ka soo baxay ilma Soomahan war ilaa way ugu dhax dhintaan xitaa ma doonayaba familkooda ku haystaan uurana leedahay adiga ayada dhaawac ma gaaraya aday dhaawac ku gaaraan laba nafar taa gabadhan sug adi dhageyso mid ba ku sheegay naagtani qofkan ani horta shakhsiyadeeda ina macnaa soo xasuusta ilmaha ha baqtiyana deerawan maxay iga quseeyay aniga waa dilaya ma nafta ka jaraya cunugay u horeey waa ina ana cunugay ilaashado waa naagta maxay iga galaani naani been ku sheegi maayo meesha naag haday soo gasho Soomaaliya taraasulkeyga ka badan ba wallahi been ku sheegi maayo hooyaday adeerkay waan kala furnin kalena u daahi maayo ninka oo indha caashaq ninkeeda aday ku taala ma farxiyo gabadha waxa ku sameeyay ninka waa barifta baadi ninka ma dhaafaada gabadha waxa ku sameeyay horta koo waa qabsan halkaas qabanaa naani kee maxaa ku geey ninkaaga adaa ilaashiyo samo maxaa u weydiibaysay walaalo macaan naag maaleedaas ismaaleeda maxaa u dhiibaysay naag waa mogta waa qanaa way xabaajinay barxad iskana ayo ku dhahay hadii eragas ee dhax horta bismiir koob ee tagbani waxa ku falaa because naag ma saarsan wax walba ka filo dumarkan waa taqaana feer qolo cuno ilaahay ka abuuro walbo wax yaro easy ka xanaaqayaan ma faandi warwaa fiiri ilaahay wuxuu qorcunigaas hadoo caloosh ku noolaana waa ku noolaana hadoo banaanka ilaahay keen rawan waa macaan in la fikiraa fiican waqtiga واسمينا واحد عيس مسير صح مسير وجرة لكن إن فكرة واي عنق أورا هذا أورا هذا هاي ما مسير دينك هذا السيسيد بامسكح هذا بحس الاسم سي فارح ما بقول السي روزانو فكر كذا واي وحي إذا سميل هاد واي لقوا معارضين أذي فرحي وح سميلت قبل صرت ما بدها في الهم هذه أنا سأدنا حسميلت كلها وفرن كلها لوضع بس راعينا كل جديدنا لك فريسة لا مرزانا كلام ما أني ساكر أنا ديوك ما هذا ما ديك نكاد دلويا نكاد إبرة هذا نكاد فيري لعله hadda waxay ku dhas ana waxay hadda ida iskentay waxay ku dhaada gabadha ninkaaga bar waa ku cunaadad waa ku dhaada ninka kuma qaban sabab waa isnaqaana ninkii mش gaaraysta kulaalay soo gaar adaya fartuun uur marka leed inaad kirtid waa hooyaa tahay fiirina qaliina gale adoo waxa la yaabaa cunuga la gaarin 8 bilood even 8 bilood tahay naaqtu waa ku boodi naag oo uur lahayn oo ka fiican adil ayaa dhiglaan ku heeso ina barashar ku kacsan yahay ina adi dhan wada bararsan tahay halka miir ma lihidbo uur marka leedahay wax miir le malan laakiin ilmaha calooshaadu ku jiro ina ka naxdo cabsi maahan naagira ay fiiri ilmaha ina ka fikirtid waaye caruura dhaloosa hooyaa noqonoosa qaliina gale fiiriya dagaalka aagasha la yaabaa nafsadaada ina ku heesam caruurtaada ina ku heesid hal mida ku hadda maanta dhimato laba biri kadib uu baroorinaya maalinka saddexaad naag uu ka aroosaya ama asoo ku qabo naag ka aroosaya ninka ilaahay afar u baneeyay mana ka caninka afar ilaahay u baneeyay la inay ka cashada maahine fiiri roزانو fikirkeeda yaa lagu macaaradin horta ayada fikirkeeda waa meel wax qaldan ku soo gelinaysa waa maseeray maya dhageysa maya mid isku wada waxay tahay ninkeyga naag ma baran karo ma ku bari kari waa ku cunay wax isku wada waa maseeraya يعني مسوق galayso maseer horta hadii yimaado adiga fartuuna taagan yahay waxay ku tiri ana uura leeyahay xaaladeeda in aan ka fikiro way tiis inta la gaarin koor roزانو okay iyada adiga shakhsiyadaada adiga soo nadaadiye matid ada ku horeysanayaaba ninkaaga maanta hadda naag ku aragto maxaa sameyn lahayd oo u dhaafaya waa u dhaafaya naagta u dhaafaaba
oo naagtaaba nin oo adoo ku arkaya inaag kale liistaada maanaa sii haysanaysaa waa dilayaa waa yeelayaa su-aashaas kasoo gudba waa u dhaafi lahayd sax oo fikirkaada ku fiiri haysasho maan horta in la wada joogo ma ogtahay ani waa haysanayaa gurigaada joogaya kuma dhihi markaas idhageyso wallaahi oo bilaahi oo tallaahi dhegeyso amsa farxiin almar dhegeysta indhaha shaqo wallaahi been kuuma sheegaya indhahaas hodanka allah ay tiraa ku idhaahday war ragnimadiisaa la tegayaa woonay furaya maxaa isku sheegaynaa ani fiir horta shantan farood maseer haddaw meesha yimaado wax ay xasuusanaysid malaani indho shantan farood horta ilaahay ma simin ninkaan waxaa waa naag nacmala ku kasaa markay faaras la gaaro aad ku wareysanaani hadda boosada indhiso fiiri su-aashan horta muran badan ee dhalisay su-aasha kale aan ku weydiinayo walaalkaa ama aabahaaga aduu hadda nool yahay inuu afar xaas luu noqdo ma ogolaa lahayd walaalkaa inuu afar xaas guursado ma ogolaa lahayd horta hore si serious ugu jawaabiya midda koowaad maanta aabahey ma noolo maqaanti ilaa u naxariisto marka aabaheena afar xaas ma ogolaa lahayn hooyadey basaa ka badnaa lahayd laqsi maanta dunidu waa iiga tagay in ay soo xasuusid sorry ma yacni waa ka qiirood ma fahantee marka walaalkey hal naagaa u ogolaa ma fahantee naf walba geeridu ay dhadhamina ilaa u naxariista aabana haye waa yahay su-aashaas foofani ahaan lahayd qofka weydiinayay waa kaa raali garaynaa taas walaalkaaga kaba soo qaad walaalkey serious ugu jawaab walaalkey si serious ee sida ani ahay aa iska soo qaadaa gabadha guursanaya waa gabar anigoo kalaa waa gabar walaashay yacni waxaan aan qaadinin maqaadsiinayo walaalkey bartaasa waxaa ka leeyahay hal naag ka badan naag kale haddoo fiiri anaaba isdilaayabo anaaba gabarta kasoo horeeyaa adab ku horeysa anaa kasoo hore naag kale xataa mala istaagi karo maalinka ay iida kala tagaan naag kale wuu guursanaa qasab waay laakiin intee la joogto asaa boqorad u yacni iidaa boqorad u iidaa afardhaan u iidaa wax walba u waa daawanaysaa walaalkey naag kale daa kuu arko halkaasaa midigaa gelinaa gabadhii farxiidu maashideed noqon rabto nasiib ay leedahay ani horta gabadh walaalkii oo guursaday iyadaa oo boqoradii sababtoo waxaan nafteeda la rabin in walaalkii gabar kale walaash oo dumaashida in lagu sameeyo ma rabin inkastoo la wiil ay la dhashteen mid cadiftaan laha shacaari ma fahmin waxoo dhee waata ka hor waxoo dhee aan afar naag oo guursanaa mid hooyaday madaxa shalleene inta kalene mid cuntadeedii waxaad i qancisa waa oo dhan fahmin hal naag ma rabi kaasna ma waa laga fadhiisanaa kaasaan fadhiisanaya ruseyna adna waxaa lahay makase waxay nafsadaada cunaynin gabar walaasha ha cunsiinin ani walaalkeyga boqoradu haystaa suldaamadu haystaa kunkaroonu haystaa lajacleedu haystaa dumaashadeeda mooyaane naag kale ma fiirinaayo walaalihii horta inkastoo ani laba wiil bis adduunyada ii saaran yihiin ilaaha ii barakeeyo ani waa jeclaan lahaa walaalaheyga inay caruur badan ii dhalaan laakiin halkanaaga 10 ama 20 ilmuu dhali karto ilaahay hadduu ka siiyo hadday dhimato soomahan dumaashada kaloo cusub waa soo dhaweynaynaa laakiin ani waxaa cunaynin gabar walaashay inay cunto muu ogolaan lahayn indho horta sida saxda ah waxaa la kornaageed kabiisma dhaamo ma fahmaysaa maanta aniga walaash horta wiil iga weyn aniga oo aabahay u dhalay mise hooyaday ee dhashay ma jirto kulli way iga wada yeeryihiin ma fahmaysaa wixii iga yaryarba hadda idin sheegayaa ani naag haddaa intaa soo guursataan guriga aa keentaan tu labaad baan rabaa iska day adoo luuqaa la taagan haddaa arko intaa soo wadaa kaa dulkeenaya wariifnimo heeraa ka gaarin fahmaysaa naagta hooyadeed adeerkeed ka dulgeysaa aadna kuu daahi maayo sida caadiga waa sida caadiga marka aa dhaho shakhsiyaddeeda aniga saa'ida uma seer badanahay shakhsiga ani ahay gabadhaas ka soo qaadaya gabadha ayadaa kunkaroon ah ayadaa milyandaan ah ayadaa afartaba u buuxin karta hadday is anfici waayaan ha kala tagaano tu kala ha raadsado laakiin ayadoo joogta baa naag keenaya hadduu yidhaahdo adaa fududaba adaa ilbaabka ka degaya ayada xitaa la furi maayo adaa lagu furaya walaalkaaba la furi lahaaba ha ilaahay noo deysto waxaa waaye su-aasha kale oo xigta idi weydiinaa waxay tahay lacalla horta ilaahay mana tuso taas lacalla haddii ay dhacdo ilmahaaga adag dhashay wiilkaaga ama gabadhaada lacalla waaya midaa waxaa waaye gabadhaada inay duurka gasho ee baashaasho waxay rabta ay samayso aa u dulqaadatid ama wiilkaaga inuu kaniis noqdo salawadaa dara mid doora haddii lagu dhihi lahaa maxaa samey lahayd qasab waaye waxaa laga yaabaa lacalla le waaye gabadhaada ama wiilkaaga waa wada dhashay gabadhaada inay suuqa gasho iska baashaasho haa waa giftarad weyn ama wiilkaaga inuu kaniis noqdo
midka u ogolaa lahayd inuu meel duurka gasho ama noqdo gabadh inay duurka gasho sabab ay duurka hadday gasho 2 maalin kadib waa soo sirsirinaa waa keensana hooyo quraana saarana shiiqa ugeena quraana saarana isbuuc amana quraan saarana gabadheedu waxa dhaa wax walba ku sameeyna waxa jeceshaa ku sameeyna hooyo iska dhaaf waa adiga ilmaha culeysna mala sar hadaan ayaa bax dhulada ku dhashay albaabkayga bax hadaa dhoo xanuun waa moogtaa aksadaada adduunkayga ee boqordeeda adaa jirtid maxaa ku sameeya maxaa ku siiya aadha alwaa ka shumi aan laabta geliyo gabadheeda warwayga maqlay hadday eewar iga diidadan ee fakato hadan ayaan eega maqnaad dan waa soo cishaa ugu dambeyn aadi hadday sasa u celi waayo waa qabanaa waa wadaa waxa geenaa meelaha u dhaqan celinta waxay rabto ma yaaliga dilnaa le yaaliga dirjilnaa dhaha gabar waaye hadhowdi ilme iyo dhal laheed nin dhana mustaqbalaan dhoo ka fikira gabadhaas waxaa ku sameey lahaa meesha liigeela cunteeda waa u geelahaa xitaa anaa badarka gacanteeda ku soo kariyo quraacdeeda iyo qadeeda iyo cashadeeda mooto u sii saarina inta jawaabta gabadheeda wiilkay laakiin waa xanuun maanta wiil adi aa dhashay wiilkay ani aa dhale maanta khaniis hadoo iga noqdo khaniiska ilaa mala baabi'i karo maanta ma dhihi kari khaniisnimadu waa ka baabi'inaa lacag awoodeeda lacagtaana ku jirto waa u sameeyaa هذا مدي كلمة وإحنا بيستو يعني ويل كيجا أنت أخطط له بح قنيسيو كان قنيسيو مقطع كيف رح يدل قنيسيو مقطع دي الله ويل كي قلب ده حنونسو ما فهمتي أساسا أو إسقرنا كيس جود واسع على الكرام رو هيا أنيسو لو ده سكابة kala xanuun badan horta ma fahmino wiilkaaga in maxaa lahaye marban in ay u tagaan xanuun horta bismillaah raxmaan raxiim gabadheedan inay wareegto mara wiilkaygan inuu wareego mara laakiin inaa mid qaato ama إنا متقاعدة cimri tagay ceeb laguma soo watiyaalla wiilkayga ii joogo gabadheeda dis noqoto waa qabanaa waa sasaba karaa le farxiyaa ku dhaxsanaa laakiin nina ilaa amiga og روزانا أدنى حاسمة لك subxaan allah ilaahay hortana mana tuso wiilkaada adoo arkaa laga garaaco in gabadhaada laga garaaco ku fiicanta because ilaahay idigu sameeyo in laga garaaco yani laakiin gabadheeda iska sharmuutoodo adhoot waa soo sabanaya dhaqan caliis laakiin ma geelnihiin dhaqan caliiska waxa u geenaynin gabdhaha la geeyo dhaqan caliista waxaa la dhaqan la baraa ma la baro yani sida hadda dhaqan caliiskii hore dadka maxaa loo sameyn jiray meesha dhexdeeda lagu kufsan jiray horta dhaqan caliis afaareed inaa gala marawi laakiin dhaqan caliis ma geenayna ani gabadheeda anaa sasaban lahaa dumarku way naxariis badan yihiin indha yar waa caashaq oo haddaad tustid oo naxariis leh oo aasa sabatid oo aad dhaad hooyo ilaahay ka baq waxaan ka soo hanuun aakhari iyo waxyaabahaas da u sheekayso waa dhimanayaa oo diintan aa si fiican u fahansiisid gabadhaada way ka soo hanuunay laakiin wiilkaada adoo arkaya ha laga garaaco waa xanuun aad iyo aad u kala xanuun badanta ani gabadheeda laga garaaca dhiilaa laakiin إندو كإندو inta xitaa maray ilaahayo hanoo kasin rabbi oo ilaahay baa ka nabad galnay wiilkaagoo wax tumi karaa laga gal asaa la tumo ceeb ka weyn adduunyada ma lahan laakiin gabadhayda inay sharmuuto noqoto xitaa xanuun waay iblaayo gabadheyda waa walaba waa laleeyahay iyada xitaa waa magac xumo laakiin haddii la isa soo barbar dhigo qaadasho haddii la gabadha roon sababtoo ah waxaa la dhahay weelka waalidka weelka iyagaa soo dhaweysan kara yacni cunuga ay dhaleen ayagaa soo dhaweysan kara samada fahmin ani dhaqan celin qof la geeyey ani qof aan la rabin baa u malayaaba sababtoo ah qof gabadhi dhaqan celin la geeyey balwad bay baranaysaa ana saa aaminsanahay sababtoo kun gabdhood oo waxaa arkay dhaqan celin la geeyey oo balwad iyo balaayo isticmaalaya xagee ku barteen meeshay ku barteen ayaga haddii aanan iyana aysan soo iibsan aysan loo keenin xitaa kuwa meesha joogo oo loo keenaya mise loo soo qarinaya aa baraya ma fahmaysaa dhaqan celin ma geeyeen intaa sasabi karo waa sasabi lahaa intaa quraan saari karo waa saari lahaa haddii xitaa meeshaas ay anfici weyda soomaha waa haajirinayaa fahmaysaa waxaa la lahay meeshii lagaa barto haddii ku anfici weydo meel laga aqoon baa la taagan fahmaysaa wiilkayga intuu qaniis noqon lahaa waxaa la qaniis quraan ma qabtee qaniis intuu noqon lahaa oo habeen walba la tumi lahaa ilaahay asale waxa tumo gabadheeda sharmooto inay ii noqota iiroon إن ولي برنامج كيني أيام كجود الجرنا سؤال شو قدام بيده برنامج كيجا عن قبل يقول ده بدل لا أودي دونا نبحث هاي إن سؤال شن سنت جنا الله وفكر عليه مركا أكو جواب يسيد
inaa wicil dhashid ama inaa naarta geshid mid doorta wicil aad dhashid inaa naarta geshid mid dooro waana sababtana waa noo sii raacin kartaa naartan waa la shaqaystaa la wicilkana waa la shaqaystaa marka naartan xanuun waaye soo bixaysid laakiin aan waxaa dhihi lahaa wicilkiina iska dhalo wicilka haddaa dhalo ilaaha ii qoradee ninka inaa isku tagno ilaahan iskeela keenay waxaana kuu qorneen ma samaynaysaa baay maxaa adi ilaahay maanabe fiiri horta su'aal sagaal wiil inaa dhashay haddoo ilaahay qor sagaalka wiil hal su'aal adi ilaahay maanabe waa may maho adi iyo qofkan waa isku timaadeen inaa sheekaysataan waa qorneed oo isku timaadeen laakiin jinniya in saddexeeyooyin ka dhex shaqeeyey okay kasoo qaad shaydaankii baan iskeena keenay shaydaanka man iskeena keenno waaba isku tagnamaho ilmahaas yaa beeray ilaahay yaa beeray sababteedadaa iskale ilaaha beermaho jinniyaa iskale sababtiisa ilaaha beere cunugaas oo ilaahay beere hadda aad dhaho yani uuraaleehe hooyadina ma u sheegi kari yani waa iska soo xaaqa oo kale haddaa dhaho dembigii zaa'id naarti la u socdaa ilaa cunug nool oo rafinoo iska soo xaaqaysaa moogtahay laakiin iska dhal ilaahay yani maanta haddaa dhashidoo korisadooda waxbartida aaqaara cafisaa waa dhalaa cunugaas waa korinaa ficiisaa u saraysiinaa inuu wicilaa taamidhaa wax madareysiinaay aabbahay aawa haddoo idhaa la xaala aabbaa u dhintay ilaahay u naxariisto jannada ilaahay geeyaan la yaabaa ma fahanti cunugaas waa korinaa horumarkiisaan ka fikiraa inaa kaas jannada ku galaa laga yaabo naarta kaas baas dartiis uu fakado waa saxantahay waa haddaa quraan wicilkaa iiroon naarta intaa gala Hussein adna soo dhawo labadaas mid qaado aniso الله هو نارت حنو وعلكن واكسي درين يابو لكن لو ديناميت قاعدة نقول موه أنا كحو وعلك هذا النار برواني لا جنازة نوكل مي أنا قدر دمانتين إن شاء الله روزينا وحالا له مؤمنين تا إلهي عذابتكم مواران صح أنا أنت وعل الله أو سمت حمو وعل كنفتر كيسب عذابك وجلسا وعل دليسيد عذابك وجلسا because إلهي وقف نين الجنوي وإلهي إني إنكر إن قرين وإلا هذا حرق إن كده عنا جوريس لقشان أول ما كصبح أولادنا دادشين ودم بكنا أنا أنت وعل قادلنا عذابتنا جلك حذا because مسلمين إلهي وحالة كما وارن عذابته وعل أنا تورمو هاي سبح ماذا بهدلك نينك هدنا وعل كهدنا هدو واحد حلال والو دري الماس إذا بحلال من قنا حرق حتى مكو قمنا يامبو مية أدو ما هن وعل هدا دش عذابته مكهرسة مية مكهرس واجلسة درتيس إنا جنوك يسار أتيك درتيس محكوي ماذا فيريا وعل توصل يا ما عرفت فتو وعل توصل يا ما عرفت ترتدي أنا قام حساي وعل ماي wuxuu ilaahay toosinaayna wax toosaya ma lahan halmid ilmo afiir ilmo oo sharci kuwa xalaasha qiim badan jiro ilmo sharci daro lagu dhalay ma toosaan been ma isku sheegaa ma toosaan halmid ku sheegaya wicil maanta horta hadaa dhasho koo horta naar waa mutaysanay waa sax waa mutaysanaysaa naarta laakiin mid baa jirta wicilka hadaa barbaariso oo si nidaam ah ku barbaariso aad tarbiyeyso quraan aad barto xaafid uu noqdo Soomaha لقوما يستأخروا وعلك تربية محمد تربية هذا أو أنيك كوسي ساحة أو وعلك أكل شيء وابا تربية نوسادي والله ما تربية نوساسمعها مركا ما يا مركا آسميني سي مسكح هذا أنت جرتي هي أنا بتوس كنين إيمي سنكدرني والله إنه سنكدرني والله وبي أنا ودارن كده أنا فكرتي سماها عذابك كحيجة أنت وعد الله يعني عذابك كحيجة dooda qaba yaani midka hooyada ay aabaha dhaleen waxa dhici karto inuu oo noqdo baaster dhaaf dhale oo inta umad u galo koo ark xabad sujuud u galiyo oo fakado gabarto ark oo dib ka saaro wax walba oo ku sameeyo wicilka baas ka daran wicilka yaani fiiri wicilka wax ma hale wuxuu haleeyaa kaligiis yaa dheh fartuune jannada ilaahay wuxuu ku qadaro marka loo abuurayay oo xitaa naf lagu soo abuurin إلهي وحو كو قدر واي وحو كو قدر إلهي مكسو هرجيدنا لكن إلهي مقرن استغفر الله أفكادن الله كو عليه
maya alla kasii koob sax ilaahay buu ku qoray laakiin yaa dambi galay adoo dhigi kartid ilaahay ima tus yaa dambi galay adi fiiri maya ani dooda qaba ani hal mar dooda qaba waxay tahay horta hadhiin wicil inaa dhalay ilaahay ka saadhin laba qof oo isku timid sheegaan ilaahay kugu beeray laakiin inuu ilaahay calooshaada ku beeray shaydaanka ma kugu beeray adi ninka taa isku imaan lahayn oo isu tagi lahayn ilaahay intuu imaado caloosha ninka waa ku calooshaada fiiri meeqa niman isku tagaan oo cidbad isgeliyaan oo wicilka iska ilaaliyaan ina cunugaas oo dhashay ilaahay way qorneedaa u dheemay maya cunuga inuu dhashay xaggeeda dhig waxaan inuu ilaahay caloosheeda ku beeray maxaa ka horeeyay ninkaan naagtan isku yimaadaan shaydaan ina isku imaano way qorneedaa lagu dhahay ilaahay marka wuxuu ku dhahay guriga ka soo bax ninkaan u imaaw wicil ha kugu raro wuxuu ku dhahay ilaahay miya ilaahay beena ka sheegina way qorneed ina wicil aad dhashado ilaahay ku qor way qoran tahay because adoo xitaa ani waa in ka soo horjeedaa si uu soo horjeedaa waxa ku qornay ma ku dhacaayo caawa haddan miya haddan inta Lusayna hal ku su'aal qoran maya hal su'aal hadii wax ku dhacayo qadarta iyo midaan kala saar qadartii midaan ay kala saara ani nini naaga isku tag waa qorin ma aqbalay shaydaan saddex ilaahay ma ku dhig guriga ka soo bax ninkaan la sinaysi ilaahay ma ku dhig fiiri maya fiiri gabdhaha quraanka barteen oo xifdiyeen oo xitaa macaankiisa og ilaahay naagsh ku inay baaqatay ka dhibatay inay wacdasho ilaahay u qoraa weena qoraadka ilaahay ma ka soo horjeesan karno hadda maanta inay ag fadhiyo ilaahay ku qormaba kugu cadaabayo bay muwaalintii tahay inuu ku qoro wili ku cadaaba inta fikirkeeda inta ada fikirkaaga nasi hayad bas Itoobiyaanimada ma yeeli ma qaado hayad fikirkaaga nasi Okay, ana shakhsiyadeeda Soomaali fikirkaaga fikirteedu way qaldan tahay ilaahay wax ma ii qorna ma yani ilaahay ma ii qorn ma ku dhihin ilaahay waa ku qoray hal mar hayad waxaan ugu reerin wixii aabaha lahaa meel loo laasayaan ugu reerin wixii mar hal mar taada noogu jawaab fikirkaaga nasi okay horta aniga shakhsiyadeeda marka dhaho wicil markii la dhaho horta naar waa xanuun badan tahay ma fahmaysaa wicilna waa kasii daran yahay adduunyada markii la aakhirada intaan la gaarin horta adduunyada magaxumaa ku mutaysanay familigeyga horta wicil iska dhaaf agagaarkiisa dheer wallaahi been kuma shabisanka xitaa liiga ilaaway xaaraan camal halka laga qowracaya aniga ma fahmaysaa familigeyga kasoo tag magaxumo sumcad darro inaadan micnaha gabar facaadan la sheekeysan karayn ma fahmaysaa wiil walaalkaana inuusan sharaf magaaladaas ku marayn ma fahmaysaa waa tan adduunyo aabaheen inuusan nina saagis xitaa la qosli karin koob shax la cabi karin ma fahmaysaa tii wicilka dhashaa aaba u tahalle walaalkeena waxaa leeyahay nagaam shormuutadii yaa walaashaa ahe ma fahmaysaa hooyadeyna ka bastii daranba naag facid lama googoosan karto waa tii adduunyo tii aakhiraa kuu soo hartay haddaa wicil dhashid naarta juq waa gelay kabta xitaa ma lagaaga sii waayo laakiin waxaa ku badbaadi kartaa inaad korsid tarbiyeysid maxaa la dhihi jiray barbaariso quraan barto unbaa ku badbaadi kartaa laakiin ani shakhsiyadeeda waxaa la muuminiinta anaa ila doodina ani ilaahay ma idhihin ninka soo bax gurigaa ka soo bax ninkaan u sinaysta imuusan dhidhileey haye adin marka labadaas ka qaadalay shakhsiyadeeda ani soo maahan aniga naartaa dooran lahaa naartaa dooran wicil marawaani wicil tabartay ma wixii oo xalaasha ahaa oo banaankaas joogay dhageyso wixii aabaha lahaa oo banaankaas joogay ama inta maray inta uu dhaqaaq lagu kari lahayn ma wicil aaba lahayn baa dusha saaran kara aniga waa saarna adoo ilaahay si alxamdulillah adoo ilaahay si waa saarna laba jooro inuu wicil uu ogaanaa le ha ogaado xabadka u saarna sii soco wicil su-aashan waxay ahayd su-aashii ugu dooda badneed ee dhelisay sida saxdana horta wax walba oo ilaahay kuu qadaro ma weynaysid kunsina kaaweeyin horaa loo dhe wax walba oo ilaahay kuu qadaro kunsina way kaaweyntahay maanta haddii uu ilaahay kuugu talagalo inaa wicil dhashid waa dhale shaki la-aan ilaahay rabbi raxmaano ma adoo 70 sano jir ah aad dhashida wix ku qoran yihiin taas horta in xaqiiqada iyo qoraalka oo ilaahay qoray in la aamino waaye qof walbana fikirkiisa uu ka hadlay su-aashan waxay ahayd su-aasha ugu dooda badneed bal idinkana waxaa waaye falcelin waa soo sameey kartiin gabdhahan waa isku qabsadeen wax ilaahay kuu qadara maaha shaydaana kuu qoray bal idinkana naga jaahil bixiya gabdhaha quruxda badan laba idinkaga mahadcelina waqtigiin sidaa ii siisan youtube-kan hore u socdo hore noogu sii wada aada u mahadsantihiin subscribe share like-ta naga ilaawina dhiirigelinta waa xaggiina dadaalkana waa xaggeena aad u mahadsantihiin